بريه لقار وقتي قلبدو واجدي ببريه وحارك بحارك وحارك بسمع عاسيه وجهي عسوبي قلبدو والأرق مدحويني والأرق وفتقي سارك المدق صوّذا مري ودد وجرا دنقود يقو وذا جرا والأرق مدحويني والأرق وفتقي سارك المدق صوّذا مري ودد وجرا دنقود يقو وذا جرا dadkani wacad bay galeen waliyo dhaar bay mareen dadkani wacad bay galeen waliyo dhaar bay mareen wax qabad mooye wax qabad mooye wax kale kawaan بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه ku-xigeenka dowladda galmudug gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka wasiirada iyo xildhibaanada labada gole dowladda federaalka ah wasiirada iyo xildhibaanada dowladda galmudug gudoomiyaha gobolka meeyarka caasimadda madaxda iyo marti sharafta kale dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadda qof walba mudnaantiisa iyo magaciisa iyo xilkiisa aan ku salaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه soo dhawow ku soo dhawow galmudug annagoo ku faraxsan booqashadaada imaanshahaaga u kurgelidda xaaladaha kala duwan ee guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug aad ku timid si gaar ah waxaan kaaga mahad celinaynaa maantay inaad noo furtay mashaariic dhowr ah oo uu ka mid yahay aqalkan golaha wakiilada ee hadda aan joogno waxaan ku leenahay gacmo furan kusoo dhawow gudaha madaxweyne sida uu xusay guddoomiyaha baarlamaanka mudan madaxweyne mashaariicdan faraha badan hadda galmudug ka hirgashay in badanna saaxiibada beesha caalamka iyo deeqbixiyaashan naga kaalmeeyey in badan oo aad iyo aad muhiim u ana dowladda iyo bulshada reer galmudug oo gacmahaas haystaa hirgeliyey oo uu ka mid yahay aqalkaan ayadoo runtii la wada dareemi karo guriga golaha wakiilada sida uu u dhisan yahay iyo intuu ka kooban yahay isku tashi in lagu sameeyo inaysan hawl fudud ahayn haddana sida guddoomiyuhu dul istaagay iyadoo gacmaha la haysto ayaa lagu guulaystay oo ay runtii kana qiimo badanya kana sarreeyaa in badan oo nalagu caawiyey mashaariic kale oo waaweyn na waa hirgeliyeen bulshada reer galmudug halkan waxaan rabaa si guud hortaada mudan madaxweyne inaan ka ammaano ganacsatada kambaniyada bulsho weynta qaybaha kala duwan ee dowladda galmudug ka kooban tahay qaabka runtii iskaashiga leh kalsoonida leh ama ay maalgashiga u sameynayaan ama ay xarumihii iyo hay-adihii dowladda ee muhiimka ahaa loogu istaagay in la hirgeliyo waxaan leeyahay reer galmudug meel aad joogtaan baa waa mahadsantihiin dal iyo dabad wayn kaga mahad celinaynaa gacantii iyo garabkii iyo sidaa dowladdiina iyo nidaamkiina u garab istaagteen mudan madaxweyne si gaar ah runtii waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka ah hadday tahay wada shaqayntii iyo hadday tahay sida ay galmudug diyaar ugu tahay inay ka faa'iidaysato fursadaha ay helayso sidii dowladda federaalka gacan uga siisay waxaan leenahay xukuumadda iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaamiyo waa mahadsantihiin annaguna dhinaceeda galmudug
waxaan is leenahay xasiloonida iyo horu socodka iyo Soomaaliya hore u socota qayb baan ka nahay gadaal ma socno kalimaadka halkaan ugu muhiimsan maanta madaxweynaha iska leh uun kaliya kolley wax kale looga hadlimaye mashaariicda iyo hawsha galmudug ka socota ayaa hadda furitaankeeda iyo dhiirigelinteeda tahay meelaha kalena madaxweyne waa tegi doontaa kuwo socda kuwo dhiirigelin u baahan iyo kuwo furitaan u baahanba ayagana waa gaari doonaa insha allah aad iyo aad mar kale madaxweyne soo dhawow adiga iyo wafdiga sharafta leh dhammaan inta nagala soo qayb gashay munaasabadaana waa idiin mahad celinaynaa qayb kasta ka koobantihiin